بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلاد جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذن أمان ييلو عدي دبنبك الله كقادو انتي مراد لله أسهلو انت باهن الله ديقو انت بوكت الله بوكسيو انتي دمتي الله نحريستو واردينتين الله نحريستو annagana allah nooga daba naxariisto dalkeena ilaahay subxaanahu wa ta'aala balaayada iyo masaa'ibta wareegta ilaahay barbar ha ka mariyo. qodobo dhowran ka hadlayaa markabkii dhuxusha oo la qabtay rooble oo safarkii aan horey u shaacinay inuu ku tagi doono imaaraadka ku tagay dani iyo axmed madoobe oo ku shirsan nairobi kadibna laga yaabo ama la filayo sida ugu dhaqsaha badan inay iyaguna safarka ku tagaan Dubai. waxaan ka hadli doonaa wasiir xagaa iyo weerarkii uu ku qaaday xarunta guddiga hirgelinta doorashooyinka. waxaan ka hadli doonaa hadalkii wasiir TikTok ee ku aadanaa ciidamada. waxaan ka hadli doonaa dekedda Boosaaso. Roble markabkii aan ku bilaabo dhuxusha ka qaaday Kismaayo oo aan idiin ballan qaadnay inaan daba soconno waxaa lagu qabtay Cumaan. waxaa la isku dayey in safaaradda Cumaan ay sii dayso. waxaa kaloo la isku dayey xubno ka tirsan dowladda in lala soo xiriiro oo xiriir joogto ah lala sameeyo oo la leeyahay sii daaya markabka. Madoobe si kala go' aan lahayn ayuu wuxuu u soo wacayay Roble isagoo ka baryay Roble inuu markabkaas sii daayo. markabka waxa uu u raran yahay al-shabaab iyo ciidamada Kenya iyo Axmed Madoobe iyo ganacsatada dhiigmeeratada ah ee dalka intay gubaan dambiilayaasha ah oo dadka intay dalka gubaan dhuxul ka dhigaya dhirtii ay xooluhu daaqi lahaayeen oo dadku harsan lahaa oo lagu noolaan lahaa oo la manfaacadsan lahaa oo roobka soo jiidan lahaa. arrintaasoo sababta abaar iyo xaalufin in alla intii meesha ku dhimatay afarta qodaa ka mas'uula oo abaar ugu dhimatay iyo haraad iyo asqo in alla intii ku dhaawacay xoolihii ku baaba'ayna iyaga akhriya adduunba lagu leeyahay. wixii laga helo xoolaana waa xaaraan. waxaa la sheegaya lacag 40 milyan ka badan inay saaran tahay in la filayo ay rajaynayaan inay xataa bixiyaan oo ay ofarada ay dhiibayaan ay ka mid tahay intaasoo milyan baan bixinaynaa hana loo sii daayo. dowladduna way haysataa Roble ilka male maxaan ku idhaahdaa UNTna way joogtaa meesha oo arrintan iyaduna qayb ka ah. mana suurtagal aha in la sii daayo dhibaataynta shacabka Soomaaliyeedna sidaas ay u sii socoto. safarka Roble muxuu daaran yahay? horey baan idinku sheegay Roble waxa uu rabay inuu issharaxo. guddi buu samaystay Arab uu mas'uulka yahay wasiir Arab oo guddigiisa campaign-ka iyo doorashada ah. markii uu meelo gargaraacay albaabadu garaacay waxa kamid ah albaabka imaaraadka. lacagtiini baan idin celinayaa maaragtay waan idin raali gelinayaa xiriirkii baan soo celinayaa baastadii iyo digirtii iyo fasuuliyadii isla socotayna waa idinka guddoomiya anaa airportka imaanaya oo sidaa isu ceebaynaya oo isu sharafta isaga qaadaya. arrin xataa aysan ahayn in wasiir lagu sawiro inuu ra'iisul wasaarihi isku sawiray. waxaasoo dhan waxay daarnaayeen rajo uu ka qabo in uu imaaraadku ay taageeraan oo ay moodaan inay run tahay inuu isharixi karo madaxweyne noqon karo. laakiin imaaraadku waa dowlad camiiqa siyaasadda wax ka taqaan muddo ku dhex jirtay arrimaha Soomaaliya aan weligeed ka lug bixin in dhowaale waxaa u soo baxday inuusan jaanis lahayn. waxaa u muuqda iyaga inuu dani jaanis leeyahay. haddaba waxay rabaan inay ku qanciyaan isaga iyo dani isla socda oo isla shaqaynaya inay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare aan dhicin isu noqdaan. safarka waxaa kaloo qayb ka ah in lacag la soo qaato oo lacagtii maadaama la diiday taalay muqdisho taalay oo uu rabay inuu isticmaalo howlahaas la diiday oo la isku afgartay inuu la soo baxo iyaguna ay isaga siiyaan inuu mid kale raadsado. kolley waa la baari doonaa markuu yimaado airportka. hadduu lacag sida waa la qabanaya lacagta. maanta waxaa soo baxday oo isku soo aaday safarkiisii iyo maxkamadda Banaadir gobolka Banaadir oo amar ku bixisay lacagtii xayirnayd oo 9 milyan iyo 600 kun ahayd inaysan soo bixin. lacagta horey baan idinku sheegay ujeedadii laga lahaa
imaaraadku waxay ku doodeen waxaan leenahay ciidamaha noo joogay meesha oo ciidamadan mushaar u siinayna markii la calculate gareeyay ciidamada lacagtooda 400 kun bay dhaafi weyday iyo xoogaa 500 half a million waa gaari wey lacagtuna waa 9 milyan iyo 600 maxay ahayd lacagtu dib baan idin xasuusinaya jawaari baa la rabay in lagu hayo inuu gudoomiyaha baarlamaanka ahaado oo laga badbaadiyo dawladda khayre oo rabtay inay rido laga badbaadiyo lacagtii markii la qabtay oo lacagtaas intii ka horeysay oo dhan uu soo taagnaa uu dagaalamayay maalintii lacagta la qabtay habeenkeedii buu iscasilay oo istiqaaladii dhiibay Roble safarkiisu intaas u daaran yahay waxa marka soo haleeli doona oo soo ilxaaqi doona ama soo gaari doona isaga oo meesha ugu imaanaya Dani iyo Madoobe Nairobi waxay u joogeen inay ku qanciyaan Kenya oo si aan caadi ahayn uga soo horjeeda murashaxnimada Dani uga soo horjeeda inay ku qanciyaan inuu jaanis leeyahay Madoobe wuxuu ku jiraa hal midig la dheelmay dhanna uma fiyooba xagga jecel hayda jecel laga jecel madani buu ka haraa masaga ku dhaca kiin wax ka sheego imaaraadka iyaguna tagi doonaan kulley sidii la isu waafajin lahaa waa meesheeda ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego qodob haddaad aragtaan Kenya cid wadata Kenya lacag bixinaysa Ethiopia cid wadata ama lacag bixinaysa imaaraadka lacag bixinaya ama cid wata Djibouti baa hawl taageeraysa siyaasadda Soomaaliya ku saabsan intuba waa in dib ku ah Soomaalida iyo danaheeda dawladahaasi iyagoo aan adiga ku nabcayn hadday rabaana ku jeclaan kara waxay neceb yihiin inaad wax noqotid inaad lugaha ku istaagtid inaad soo baxdid Soomaaliya strategically meesha ku taalo waxay col iyo cadaawo ku tahay imaaraadka iyo khaliijka oo dhan meeshay Soomaaliya ku taalo iyo khayraadka hoos yaala waxay col iyo cadaawo ku yihiin khaliijka iyo khayraadka ay ku nool yihiin oo dhan Soomaaliya waxay noqon kartaa giant economy ganacsiga adduunka ugu weyn bay noqon kartaa meel waxay noqon kartaa adduunka oo dhan ka qanisan oo ka taajirsan haddii ay hesho dadkeedii marka waxaan ka dhaqaaqi la'anahay cadowga ugu weyn oo ina haystaana uu yahay dabadhilif caadaqaate lacag uun raadinayo isagu corrupted ah oo iimaan kala baynu dhaafi la'anahay kolley wuu isku dayayaa Roble inuu markabkaas sii daayo maadaama markabku u raran yahay nin imaaraatiya oo lacagta imaaraadku leeyahay wuu isku dayayaa lacagna waa ku dalmanaya inuu qaato laakiin ilka ma leh mana sii dayn karo arrintaas wixii ka soo kordha waa idiin soo gudbin doonaa horey baan idinku sheegnay inaan isha ku hayno la soconno uusanna baxsanayn dhacaas la dhacay ummadda Soomaaliya hantideeda uusan baxsanayn qodobka igu xiga waxaan ka hadlayaa wasiir xagaa weerar buu wuxuu ku qaaday qaawan xarunta guddiga hirgelinta doorashooyinka isagoo isku dayay inuu ergadii meesha joogtay erga aan ahayn uu keensado oo ergad khaldan meesha la keeno wasiir xagaa wuxuu ka mid yahay xubnaha 8 ah ee aqalka Soomaaliya ugu jira beesha Ciise saad ogtihiin Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu horey baan idinku sheegay wuxuu ku soo siiyay Roble amar inuu 8 xubnood isagu soo magacaabo dad isagu uu wato isla markaasna uu kala shaqeeyo wasiir xagaa shalay buu soo weeraray meeshii waad aragteen odayaal iyo duqow iyo culimo iyo birmageyda qaylinaya inaysan u shaqayn bay u badan tahay wixii uu rabay laakiin saasaa laysu qaawinayaa kuraasta waa boob wixii la boobi karaa la boobiya qodobka igu xiga wasiir TikTok team dheer oo tiro badan buu qayb ka yahay waxay la diriraan sharafta iyo karaamada Somali National Army ama SNA ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxa ay la dagaalamaan oo ceebeeyaan sumcadooda waxay isku dayaan dadka shacabka iyo iyaga inay kala fogeeyaan inay isku diraan oo la isnaco dhalinyaradaas naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda u huraya qaranka Soomaaliyeed difaaciisa oo maalmoba dhimanayo dhaawacmaya bay waxay la daba joogaan cay aflagaado maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya hadalka TikTok
uu ka yiri BBC-da wuxuu yiri meesha waxaa jooga ciidamadii AMISOM sidaa darteed ciidanka Soomaaliya inay tagaan ma aha waxaa la rabaa AMISOM in lagu hayo dalka AMISOM waxaa la rabaa inaysan bixin AMISOM waxaa la rabaa sanadaha hadda 2 sano loo qabtay inay ku baaba'aanba dhammaantood oo tartiib hadba qayb la saaro ilaa 2 sanana ay ku wada dhamaadaan oo dalka ka wada baxaan in dib loo dhigo oo say iyagu rabeen 2026 in la gaarsiiyay iyagu rabeen oo 4 sano soo socota ay sii joogaan kadibna contractigaas kadib laga sii wada hadlo sidii dadkaas oo dhan waxaa ka mid ah Waare oo aan arkay tweet aad u khariban oo uu isagoo matalaya Sahan Research iyo Matt Bryden iyo nimankii argagixisadii siyaasadda Soomaaliya ka muufaysan jiray isagoo matalaya uu ku soo qoray Twitterkiisa uu leeyahay Turkiga inay Soomaalida ciidankeeda tababaraan looma baahna waa inay dib u fiiriyaan maxaa yeelay waxa loo adeegsanayaa arrimo siyaasadeed ciidanku wuxuu ka amar qaataa taliyaha guud ee ciidamada wuxuu hoos tagaa chief commander in chief maadaama amarku uu ka soo baxay chain of commandkii oo amarka ciidanka meel lagu geynayo ama meel lagaga saarayo uu ka imaanayo silsiladii xukunka iska lahayd oo amarka lahayd see loo dhaleecayn karaa see loo ceebayn karaa waa nidaam darro waa qaab darro waa siyaasad xumo waa inaan laga xishoonayn haba yaraatee in laga muufaysto siyaasadda Soomaaliya aan laga xishoonayn Sahan in loo shaqeynayo loo adeegayo ayuu Waare cadaystay meel ka hooseyso uu gaari lahaa u malayn ma inay jirto ummadda Soomaaliyeed indheheeda maanta ka dhacay waxa la mid ah midkan u bixiyay warxungey fiqi warxungeyga wuxuu ku sheegay ciidamada gorgor wuxuu yiri waa maleeshiyaad maxay maleeshiyaad ku yihiin meel aan rabin bay tageen wuxuu yiri nisa waa al-shabaab shaatiga u soo bedelanayaan shacabka ganacsatada arrintaas waa arrin isku xiran sumcad dilka la dagaalanka wiiqidda iyo sharaf ridka ciidamada Soomaaliyeed waxaa ka dambeeya quwadahaas raba inay ciidamadoodu Soomaaliya mushahar ka qaataan oo kamid ah xubnaha ka AMISOM dekadii Boosaaso way xiran tahay hore baan idinku sheegay DB World qandaraaska ay ku soo qaadatay oo dawladeeda kaga qaadatay inay dekadaha ku yaala areadaas gacanka ah ay gacanta ku dhigto ujeedada laga leeyahay ka dambaysa waa arrintii Djibouti ku fashilantay Djibouti dekad bay leedahay nolol kalaba ma leh waxay isku dayeen dekadii inay catilaan oo baabi'iyaan ma aha inay rabaan inaad wada shaqaysataan oo aad labadiinuba liibaantaan oo shaqo ka socoto ma aha waa inay xiraan dekad kasta oo viability leh oo muuqan karta inay Jabal Cali iyo dekadaha iyagu ay leeyihiin Miina Xamriya iyo inay wiiqaan dekad kasta oo arrintaas qayb ka noqon karta inay xiraan dekadii Boosaaso waa xiran tahay markab soo ma geli karo culus ciid baa xirtay ma garanaysaa iyagana xabad iyo labo iyo baa soo gelaya maraakiibtu ma soo aado ma rabta inay soo aado doonyaha waaweyn soo aadimayaan ma garanaysaa canshuurtu waa qaali dadkii iska lahaa 10 jeer aan idiin sheegay DB World waxba idiin dhisi mayso reer Boosaaso marar badan baan u sheegay reer Puntland reer Puntland waa dad wanaagsan oo nadiif ah oo sharaf leh oo la maamuli karo laakiin nasiib darrada ku dhacday baa waxay tahay sidii uu Cabdiwali sheegay nin khariban isagu yiri alkuliiste isaga ugu darnaa alkuliistayaashii meesha soo maray wuxuu yiri maalin walba gabar wanaagsan oo alkuliiste guursatay la mid tahay Puntland kii ugu liitay oo gabar guursato ayuu ahaa kana ka sii liitay oo isna ka sii darnaaday oo sii baabi'iyay midba midka ka dambeeya waa ka sii liitaa marka waxaan in badan sheegay in la iibsaday dekadii waxaa sheegay baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Puntland hadda jooga ayaa u sheegay si public ah inuu Cabdiwali iibsaday waxaan anaguna idinku daraynaa baarlamaanka hadda jooga wuxuu idinka qariyay kana inuu ka daba iibsaday waana arrinta uu hadda hor taagan yahay in DB World laga saaro meesha odayaasha iyo isimada iyo cuqaasha reer bari
waxaan leeyahay arrintaa ka dhiidhiya nimankaas hadday noqoto xataa inaad tuuriyaysaan ka saara magaalada puntland ka saara nimanka la yidhaahdo DP World dekadiina qota oo dhista dekadiina hagaagsada weynaysta oo faafiya shacabkaa dhisanaya garaacad idinkaa dhistay tanna maalmaa ku dhisan kartaan bilaad ku dhisan kartaan oo sideedii iyo kasii fiican ka dhigi kartaan iska saara cadowga idin dul fadhiya nimanka lacagta ka qaatay iyo iyaga haysla dhiil gareeyeen waxba idinkama khuseeyaan meelaha ha ku xisaabtameen nimankii iyaga lacagtoodii qaatay ha u raacdeen laakiin dekadu iib maaha beecna maaha baxa ha la yidhaahdo waxaan ka jawaabayaa qodob yaroo nin baa shalay isoo wacay wuxuu yidhi dowladdii soomaaliya waxay samaysay nin mareexaana baa dowladda waxay u xirtay COVID-19 test Minneapolis qofkii ka soo dhoofayo Soomaaliya u soo socda qof kasta waxaa lagu soo rogay inuu $200 bixiyo hadda goor waxaa laygu yiri ama aad maqasheen aad loo faafiyaa dowladdu jaadka Ethiopia waxay u xirtay maxaa Cabdullaahi Farmaajo walaalkii waxaasoo dhan waa been abuur tana marka daliil u ah aan hadda idiin hayo COVID-19 waxaa la soo rogay caalamka oo dhan lagu soo rogay ama waddamadoo dhammi ay ka qayb galeen Soomaaliyana ay qayb ka tahay in aysan ogolaan dalkeeda inuu soo galo qof dibadda ka yimi haddii uusan wadan negative testigaasoo 2 beri gudaheed lagu qaaday weliba 2 beri gudaheed lagu qaaday marka uu dhoofayo daqiiqada uu diyaaradda raacayo inaan diyaaradi qaadi karin waddanka uu u socdaana uusan aqbali karin inuu soo galo haddii uusan wadan COVID-19 test oo negative ah inuusan cudurkii qabin warqad caddaynaysa testiga isaga ah oo private ah baa nin Minneapolis rabay inuu caruur ka kaxeeyo oo u socday Muqdisho la yiri adiga iyo caruurta qof walba waxaa la marinayaa qofkii ka weyn 12 sano waxaa la marinayaa test baad maraysaan $200 270 buu weey waa ka badan yahay 200 marka anigu haddaanan ogeyn oo aanan xog tahayn wuu ii sheegi lahaa qaabka dowladnimadu u shaqaysana lacagtaas laga qaadayo Minneapolis lagu qaadayo waxa iskale buu igu yiri dowladda federaalka ah dowladda federaalka ana nin madaxweynaha isku reer yihiin bay u xirtay dowladda federaalka marka hadda Minneapolis bay dowlad ka tahay ka talisa waa farmaajo walaalkiisa jaadka keena oo loo ogyahay cid iskale jaadka cid iskale waa loo ogyahay niman reer koonfur iskale hatta qabiilka kore nimay madaxweynaha wadaagaan shaqul kuma leh hatta qabiilka kore hadda korna waa idin sheegay been abuurka la faafiyo meelaha la mariyay kamid saasoo kale ayuu ahaa koolkaas COVID-19 xaaskayga tagtay Canada joogaa bishii hore intii la soo rogay kadib bay tagtay oo waxay tagtay Minneapolis marka halkaan ay ka baxaysayna lacag baanu ku bixinay COVID-19 test inay marto markay xaga ka soo noqonaysayna $275 baa laga qaaday oo ay kaga soo dhooftay oo ay ku timi Canada marka taasna ma dowladda federaalka oo Muqdisho contractigeedii bay kamid tahay qof kasta oo Minneapolis ka dhoofaya oo caalamka aadaya meeshu doonaa aadaya mana aha Minneapolis oo waddanka oo dhan waxaa laga rabaa COVID test oo gaar ah mid gaar oo ay ugu talagaleen oo privatized ah oo airportada laga qaato oo ma garanaysaa 24 hours gudahood lagu siinayo jawaabta oo ay leedahay shirkada ay siiyaan dowladda Mareykanku ay siiyaan ba yani saasoo kale ka qaadaya marka waxyaabahaas dacayaadka ah oo iska caatada ah bay ka mid tahay arrinta jaadku markaan ka hadalno jaadka Kenya oo ah jaad dagaal siyaasadeed nagula jira bay waxay dhahan ka waran kan Ethiopia oo farmaajo u xiran farmaajo uma xirna waa been mana aha wax fiican jaadka Kenya ka Ethiopia ka imaanaya laakiin dagaal hadda kuma jirno anaga Ethiopia waxaan dagaal ku jirnaa Kenya Ethiopia waa isku soconnaa sida ay hadda u dhaqmayso mar dhow waa isgalaynaa haddii aysan dib u guran dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey mar dhow madaxaan isla galaynaa waa la hubaa dantayadu iyadaa solid ah oo taagan heshiiska iyo siyaasadda saaxiibtinimadeedu maalinba waa meeshii ay dantayadu taal hadday Ethiopia dantayadii ahayd inaan la isfaragelin ka baxday oo ay dhaqdhaqaaqyadii maalmihii dhoweed ay ka sameynaysay Somaliland ay sii wado xabadda waa bilaabanaysaa
rasaastu saasay u bilaabanaysaa siday Kenya ugu socotay ugu soconaysaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan xildhibaanada kelmad ku iraahdo xildhibaanow nimankaasi lacagta ay soo dhiibi doonaan qaado horey baan u sheegay aniga agtayda xalaal bay ka tahay waa lacag loogu talagalay dalka in lagu dumiyo cadow lacagtiis waa qaniimo haddii uu gacanta kuu soo galo waxna ka sadaqaysta oo dadka siiya waxna idinku qaata laakiin dalka u heliya waxay necab yihiin doorta saad gabre uga tuurteen xilka uga tuura Kenya iyo Imaaraadku ha qoosteen oo mar dambe yay mar dambe nagu soo lugoyn tribkii dhawaa waa la qoostay oo waa la soo lugoay lacagtii ay bixiyeen kuma ay faa'iidin 5 sano nimaysan jeclayn baa fadhiyay meeshii iyagoo dhan 5 sano dambe ama 4 sano soo socotana sidii oo kale u gala hasiinina hal shay oo ay rabaan hasiinina lacagtana ka qaata mid alla midkii lacag idin keena isagu ma laha waa boob ama shacabka lacagtii laga boobay ama lacag cadow soo dhiibay oo dalka lagu duminayay qaado dalkana u heeli khayr badan baa idin rajaynaya insha allahu tacaala waa ka baxaynaa qaska iyo labka roob la wado waynu ka gudbaynaa insha allahu tacaala khayr badan baa idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu